السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي هبون إذنكين daawadayaal iyo dhageystayaal waxaan halkan idinku soo bandhigaynaa qayb labaad oo kamid ah suugaantii gubka ahayd ee aan idin la wadaagaynin waxaanan idin haynaa abwaan maxamed aadan food iyo tix muhiim ah oo qiso iyo saameyn xooggan ku lahayd noloshiisa iyo xayaadkiisa intaba marka bal abwaan maxamed han weydiiyo horto sababta ku dhalaysay gabaygan aan idin soo bandhigayno oo magaciisa la yiraahdo afagaale sidoo ku yimiday iyo sidoo ku curtay bal horta wax ka weydiiyo maxamed soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim wandhawahay cabdalle horta gabaygu wuxuu soo baxay 13 bishii koobaad 2003 rag aan xigtan lahaay oo iskugu yimiday talo iyo walaaqtinimo iyo arrin iskugu yimiday aan fadhi qura lahayn marka aan urur lahayn baan anigana hawlahayga iyo dhex qasnaayo muddo 8 bilood ah iyaan lacag tiri qaadan 500 bixin jiraan bixin marka maalin baan ugu tagay ragii waliba ilmaadeerta ahaynay ugu muhiimsanaaba nin kamid ah saragno bal buu qabto balkii baan ugu tagay ragii waxaan leeyahay hawshaas dhex socota dacwad laba dumar iyo xiinkood marka hawsha aniga iska leh idinkeedii ku buuqid maaye 8 bilood maadaama aan qaaraankii bixi artalkii oo yaan liisoo yar eegi amiyana noqon qof dee iska maqan uune saasan ku maqanahay i ogaada oo indha kuru haygu soo eegin nin la ogi hal noqdo sidii baan kaga tagay hawlahaygii baan ku dhex jiray maalmaha kamid marka gabadh dumaashidayo war maxamed waxa geedgelinka ku maqanto wallahi hawlaan ku yar jiro soonigii ninkii hebel ahaa arkay ugu yiri ninkii hebel waa kii maalin dhaweey tolka u yimiday ku calaacalayay lahaa hawshaas ay haysata hawshaasaan ku jira dhibtaas ay haysata oo kii lahaa marka waxay sukay qaban weeyday ragii tolka ayaan ku yiri war hawshaas anay ii gaar tahay oo de maamaha ciisa waxa ku jirtay mogonka iyo micigaba la iskama caawiye de tan waa dib mogon keenay ana ii gaar tahay qarniyo ilxun haygu soo eeginadi ma ii gurmaday noqotay waan shiro saasa gabayga ku dhalisay way marka bal baan weydiyo goor mu yahay balku waa jimce bilcaadi aqalkii hebel baa la fadhiyaa aqalkii daawud aadan oo walaalkay oo xiyaabliyan ka dhaqaaqay gabayga buugi qalin ma qaadan muuna aan noo sii badnay لكن يرى أنه مركي كل نفسي هدي وهري لها رجع هالكار فردي أي واحد بدنا الأمور كفهم ملايين أن هري لها جواب أو في عام تكسر لكن قتال نيس كل عيل النقطة حضرنا أنا أقول حي يقول جري برعود بكل عيل كل كذا دكان لك ها واحد جوابي كم السون نقول مركا قبل كنا وحب لا ماي سنة تنوع وحنا هدي ليس أبابله قطلنا الله عند رشيقته ayahayga noloshii hadii aabuq laga shoro afaro adeer midii dhalitay isweydiiso saddex jeer markii la is arkay tala aroos dhaafto saddex unug in loo kala bixi baan urka ku hayaa in arrimiya oo tala dhamaan galiyo urkiisa u gurmada walaalkii haduu udur ka leecaaba aqli ali sameeyay bulshada egta dhinaciisa ninay urka kaga taal tolkii arag jacaylkiisu murti ay odyaal hori baxshan erena mahmaa ah ayaa tiri hortiisu arkuu eegi waa dhinac أحواشي صوصية مركي تلكو إعدادو إيادو لنا نابو أهي ويدوغا أيان تو يمادو تلكونا إريا ويديو أم جيرادا ودكو كإري جواب واي ويلان أيان قولا تلكي إباكا كتوسي أقوكي يماركي واركون تال ألاس ميس إني هبال أيان هاي تلكنا وان وانقبا الدون كان واحد يقو قرطان وان أولا أرن كان هالكادي درتان وان افتيميني يقول دارا كي كان أبشير عاقل مبوح إريا قرحوا وافكي أوركا كمي مني دباديني آدي إردادا كو أساقيسية صدح داين الله كان بحيبان أوركا كو هيا أنا قولا ميت كان هاي كل يواب الأوغان لبا حباها الدور بيركضو وأمي سينتيسا ضوعي إلى الظهر بأمكم مودا هيا شمركو إنهيلا أنبا إليك شي سارو إنو آريها لوكرة لقاق ياعا أنبا آمسنا لي مقران إمي إكونين وقتي قو أتكادا حماني الباب فري إن أجيدا عليه إيا إنو إتال كامي أفقال لقورتو ضيحو أنوكو ما غيرو أي كاردو أضا كورتات كالي أركيسين إنت ساي أبارحوني جرتين أريقا جيدا أبكيو أيان ليس حمل ليس إيدين أقل نكو كجرو أمبان تحضرنا كلا يا هاي إن يرقرت كأيادنا كوباس وما أبابلين مركا مربين إن أبارو نكي إن هذا الكيادة يقول اليوم إن هذا الرمان ويدل مري لكن محربين إنه يسفهمي يسبو